laakiin intaas ku jirta waxay nahayn kartaa sanado 10 cisho ayaa ka soo wareegtay markii Puntland laga hirgeliyay xarunta cilmiga dambiyada taasoo ujeedadeedu ahayd inay daboosho baahida la xiriira xarun lagu ogaan karo dheecaanada hidisidaha ama DNA-da. Cabdirashiid Maxamed Shire wasiirnisihanka madaxda waa xaruntan sharaxaad ayuu iga bixiyay qaabka ay u shaqeeyaan maraan kula kulmay xafiiskiisa. xaruntu marka waxay qabataa wax la xiriira baaritaanka cilmiga dambiyada. waxaan ka wadaa waa forensic center marka lagu sheego afka Ingiriisiga. forensic wax kala ma ahan waxay tahay ama forensic science marka la fasirayo waxay tahay waa isticmaalkii cilmiga science-ka iyadoo la rabo in lagu xalliyo wixii dambiya oo dhacay. laakiin xaruntan hadda ku taala Puntland magaalada Garowe waa qaybta qaabilsan wixii la xiriira cilmiga forensic biology-ga. macnaheedu waxay tahay haddii laga soo qaado wax ah dhinaca biology-ga qofka laga soo qaado qofkii dhibka geystay ama ka loo geystay hadduu noqon lahaa wax biology-ga ama candhuuf ama dhiig ama dheecaan kaleeto ama wixii la xiriira sida tinta oo kaleeto oo la xiriira xagga waxa nool laabku wuxuu awood u leeyahay in uu kala soo baxo maadada DNA-da. iyada ayaa marka loo isticmaalayaa in la sheego ama la cadeeyo qofka uu ka yimid sambalkaas. hay-adan oo wixii ka dambeeyay Oktoobar 2017 noqotay miiskeedu madax bannaan waxaa iminka laga heli karaa adeegyo badan oo markii hore loo aadi jiray waddanka dibaddiisa sida ay sheegeen qaar ka mid ah dhalinyarada ka howlgasha shaybaarkan lagu baaro dheecaanada hidisidaha. shaqadan qabanayna waxa weeye inaan bulshada u qabanayno forensic science-ka ama waxyaabaha la halmaala kufsiga tacadiyada biologic xagga DNA-ga paternity-ga haddii ay noqoto waxa la halmaala paternity-ga daaranayo waxa weeye ilmaha jinsiga ahaan la isku haysto kufsiga rape ah oo aan xalinayno kiisaska bulshada dhexdeeda ka jira aan kala saarayno. saadana مثلا waa shaqo sensitive oo aan sahlanayn in cadaalad dadka loo sameeyo qof victim ah oo dambi laga galay xanuun badan dareemaya in uu cadaalad helo waa wax muhiim ah laabkana uu qabto shaqadaas way waa shaqo adag oo u baahan in juhdi badan lagu bixiyo. toddobaadkii hore waxaa shir isugu yimid guddiga sare ee dawladdu u xisaartay xaruntan. ujeedka kulankaasi waxa uu ahaa sidii taageero loogu heli lahaa isla markaana u noqon lahayd hay-adani mid hesha dhammaan waxyaabaha ay u baahan tahay. kulankan oo shir gudoomisay wasiirka wasaaradda haweenka Puntland goobjoogna uu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo xubno matalaya guddiga sare waxa lagu falanqeeyay baahiyaha ka jira waxa uu qabsoomay iyo halka mustaqbalka la aadi doono. inkastoo laba waji ahaa kulankaasi haddana waxaa la isku raacay in meel looga soo wada jeesto sidii xaruntan loogu raadin lahaa taageero dhaqaale mid qalab iyo dhismayntaba. waxaa runtii marka sharaf inoo ah farxadna inoo ah markii aan la fariisanay dowladda Puntland madaxda ugu sareysa uu ka mid yahay madaxweynaha iyo ku-xigeenka in ilaha daraale ka dhiga ay ballanqaad sameeyeen in xarunta loo helo dhulinta ka ballaaran oo loo dhiso marka ugu horeysa insha Allah ay suurtoobi karto. waxaan aad u rajayn doonaa insha Allah maadaama xarunta hadda ay tahay xarun lagu talagalay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha kale oo goboleedyada kulli inay qayb ka qaataan horumarka iyo dhistaanka xaruntan. maxaa dhacay waxay dal u tahay qof walba Soomaali ah iyo magaalo walba Soomaali ah. ku dhawaad 10 kiis ayaa la keenay muddadii xaruntan ay shaqeynaysay badankoodu waxay ahaayeen kuwo la xiriira kufsi. waa xaruntii ugu horeysay ee nooceeda laga furo dalka Soomaaliya. dad badan waxay aaminsan yihiin inay yareyn karto tacadiyada la xiriira kufsiga ee ka dhacaya gudaha waddanka Soomaaliya. iminka waxay ku kooban tahay Puntland oo kaliya laakiin mas'uuliyiinta halkan ka shaqeeya waxay ii sheegeen in mustaqbalka la rajaynayo inay noqoto mid heer qaran isla markaana guud ahaan ka howlgasho dalka Soomaaliya oo dhan. dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceedu waxay sheegtay inay ka qayb qaadan doonto dadaaladan socda kadib markii uu maanta buuqday xaruntan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Aadan. xaruntan imaanshadeeda waa markii koowaad oo runtii iigu horeysay waana xarun muhiimadeeda leh marka la fiirsho ahmiyadda loo furay waa wax loo baahan yahay horena waan u sheegnay daktarkana waan is aragnay adeega ay bixinayso ama mustaqbalka ay bixin doontana waa mid dadka iyo dalku ay u baahan yihiin annagana ka wasaaradda qorsheyn ahaan hadduu Ilaahay yiraahdo wixii karaankanaga ah oo aan qaban karno waa qabanayna waxna kala harimayno laanahu waa ahmiyadaha dalka mid ka mid ah oo runtii muhiim ah marka waana markii ugu horeysay insha Allah markaan ayadoo ka ballaaran inta inaan soo booqano oo shaqeynayso
oo dadku ay markaas wada arkayaan wixii ay qabanayso inaan soo booqanaan jeclahay insha Allah laakiin hadda anagu muhiimadeeda waa aragnaa waana dareensanaa. Dowladda Puntland waxay dhinaceeda si adag u sheegtay inay ka go'an tahay hirgelinta hay'adan. Waa kan madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo si adag u sheegay inay albaab kasta u garaaci doonaan si hay'adan u noqoto mid taabagasha. kulliba anigu waxa weeyaan qayb ban ka ahay raadinteeda hay'ad badan baynu garaaci karaa in allaale inta ku waxaysan for example huwa la hadli karaa nimanka UNICEF gadar waan la hadlay Cabdirashiid waanu sheegay gadar Red Crescent waxa weeyaan diyaar waxay u yihiin inay ka qayb qaataan xitaa dhismihii ay wax ka dhisaan Puntland sidoo kale waxa weeyaan wixii ka bilaabmana iyada isriixaysa hal albaab hadaad hesho albaab ku dhiibaya simple waxa weeyaan wixii aan la fariisan karaa adii tilmaantaan albaabkaas ay wax ku jiraan garaac hal la yiraahdo waan garaacaya aan kala qaybino hawshii waxa weeyaan ta Soomaalida aan ugu hormarino wixii sidii loo heli lahaa meel ballaaran sidoo hadda sheegaysaan inaad ballaadhisaan aanay waxaanay DNA kaliya ku yaani hayn bal loo baahan yahay. Shaybaarkan oo ay taageerto dowladda Sweden oo dhaqaalaheeda marinaysa hay'adda UNFPA ayaa hirgelintiisa lagu beegay kadib markii dowladda Puntland hirgelisay xeerka kufsiga si loo yareeyo tacadiyada lagula kacayo haweenka oo sare u kacay gudaha dalka Soomaaliya sanooyinkii u dambeeyay.